بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وحيبت بوساسو دنياها يركا وكوا soo qeysto soo kalluumaysto weeyaan oo habeenkii iyo subaxii iyo shaqo tagaan ilaa wax badda ka soo sidayso soo gurtaan kadibna way iibsadaan joogan halka lagu soo iibiyaa la keenaa halka gabdho kala waxaynayaan dadkuna ay ka iibsadaan wata halka lagu kala gadgadanayo hadda weeye kalluunka soo gaday saaka la soo guray marka ilaahay bad fiican buu inasiya bad weyn buu inasiya hadda badda cas weeye tan waa boosaasa meeshani marka sabab hadda fiiriso wadankeena maartay dadkeena ay u qaxaan waxa inagu keenay yani dagaalada iyo colaadaha aynu wadno inaan joojino nabad iyo walaalnimo iyo amni aynu Soomaaliya maartay dadkeeda isugu keeno dad wada muslimiin ah boqolkiiba boqol islaamnimadan inaan ku dhaqano aan ka run sheegno wata dadkaas saas u la xamaalanayaan dooyaha hadda arkaysid kuwa hadda arkaysid hadda shaqo tagayaan badda qaarna hadda keeneen kalluunka keeneen maanta waa 15 bisha Oktoobar 2022 waxa weeye saasa bad u buuxdaayo ilaahay in baddaas ina siiyay badda cas weeye badweyntii indigana waa noo taala iska ballaaratay Soomaaliya badda labaad weeye adduunka Afrika badda labaad ugu dheer weeye oo maartay ilaahayna uu buuxiyay nimco ka buuxsay shidaal baan wadankeena ka buuxa beero iyo wabiyaal baan ilaahayna siiyay waxa weeye dadkeenu inay maalba gabdhaheena iyo carruuraheena ku baaba'aan balaha Greek iyo ku dhamaadaan waa waxa inagu ka shaqeynay marka Soomaali waxaan ugu baaqayaa ka codsanaynaa walaalaha Soomaaliyeed meel joogaanba aqligu inuu shaqeeyo oo isdaba amaanta aqli xumada inuu ka baxno oo Ilaahay u laabano subhanahu wa ta'ala oo muslimkeenu sheegano ka dhabayno oo Ilaahay nabigeena watuulaha sallallahu alayhi wa sallam al-muslimu akhu al-muslim la yakhudhuhu wa la yahqiruhu ila akhir hadith hadith kale wuxuu ahaa al-muslimu man salima al-muslimuna bi lisanihi wa yadihi marka amni xumada inaga isu keenay hadda amni xumada aanay jirin baddeena iyo barigeennaba bacdan iyo nimca ka buuxda waana kambaniyasha adduunka oo hadda loo qaxayo waddamadooda la aadayana iyagaan u yeeri lahayn oo wadanka waxa soo saar waxa ka shaqeeya lacag ilmu kula heshiin lahayn batroolka soo saar waxba soo saar lahayn badda maartay kalluunka soo waxba ka soo bulshada sameyn lahayn adduunka wax u dhoofin lahayn ma garanaysa hadaynu amni heli lahayn waayo amniga ayaa wax walba ugu muhiimsan ilaahay wuu quraankiisa ku lahaa liilaafi quraysh ilaafi imtixaan shitaa'i was-sayf falyabudu rabb hada al-bayt الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف marka hadii amni la helo oo cabsidu baxdo wax la cuno Ilaahay waa inasiya subhanahu wa ta'ala waa buuxdaawi sabab marka aynu tada ugu jirnaa 3 sano hadda 4 sano ku jirnaa dibka aan ka baxno Ilaahay u laabano oo dadka walaalaha muslimka Soomaaliyeed meel joogaanba sidii walaalnimo lagu shaqeyn lahaa oo xaqa loogu adeegi lahaa oo dhibaatooyin cad looga bixi lahaa inaan ka shaqeynaa hadii la yiraahdo وعبد المجيد محمد علوين والمسلم لكن ما انتم عندكم بوساسو وحيبتها قطع عس ما شاء الله الله نبارك يا بوساسو iyo garaacad iyo muqdisho iyo berbera iyo meel walba oo dadka ku taalo ilaahay waxaan weydiisanaynaa nabad iyo amni iyo dawladnimo iyo aqliga ilaahay noo soo celiyo waxaan kaloo ugu baaqayaa madaxda Soomaaliyeed meel joogaanba in dadka Soomaaliyeed isu keeno baasana ku jira maanta ninka sarafta leh waa ninka Soomaaliyeed isu keena oo colaadda ka dhax saara oo mideeya weeyaan oo dadka isu keendiraya inay ka qabta walaalnimada iyo cafiska iyo walaalnimada ka shaqeeya wabillahi tawfiiq subhanaka wa ta'ala anta astaghfiruka wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh